shirkan jaraa'idey sida wadajirka ugu qabteen Masuliyiinta Xisbiga Cadaaladda Daryeelka Ucid ee gobolka G.Awdal xafiiska ay ku leeyihiin magaalada BORAMA ayaa waxa uu ahaa mid ay ku taageerayeen heshiisyadii maalinimadii shalay ay ku kala saxiixdeen xisbiyada kulmiye iyo Ucid magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kuwaas oo ay qayb ka ahayd sidii doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanku ay u qabsoomi lahaayeen xilligii loo asteeyay ayaa waxay sidoo kale shirkani jaraa'id ay kaga hadlayeen isla markaasina baaq ugu dirayeen xisbiga mucaaridka ah ee Waddani Masuliyiintani oo hadallo kala duwan ka jeediyay shirkani jaraa'id ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaanu maanta taageero weyn u muujinaynaa labada xisbi qaran go'aankii ay shalay ka soo saareen qabsoomidda doorashooyinka 2019 doorashooyinka Soomaaliland waxaan ayidsanahay oo ku taageeraynaa haddaan xisbiga gobolka G.Awdal nahay ee cadaaladda iyo daryeelka ee labada xisbi ay u taagan yihiin dadka qaranka iyo qabsoomidda dimuqraadiyadda geedis waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka ee Waddani war xisbinimadu ma aha ficiltan ma aha leena Cabdiraxmaan iyo xisbigiisa Waddani war ka daaya falqaladaynta Soomaaliland ka daayo oo doorashada xilligeeda ha dhacday laakiinse haddii ay doorashada saddexdii xisbiga Waddani diido la Ucid iyo kulmiye diyaar bay u yihiin in doorasho xilligeeda qabtaan marka waxaan maanta aad ugu hambalyeynaya labada xisbi ee go'aanka adag ee cad gaaray runtii hambalyo ayaa leeyahay waxa nasiib daraa xisbiga Waddani oo madaxweyne u yahay maanta oo gudoomiyihiisu yahay ninkii horeba 12 sano u soo fadhiyay baarlamaanka ee gudoomiyaha ka ah waxa waqtigii uu kursiga fadhiyay dibaatada uu xalin waayay maanta oo mucaarid yahay waxba ma xalin kara ay ka dhigan soo kale waxaan leenahay dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland waxaan ku boorinaynaa si u taageer lahaayeen go'aanka ay doorasho xor u qabsoomi lahayd sababtoo ah waqti badan bay imika wax filaya dib uga dhacday doorashada waqtigeedii marka waxaan jeclaan lahayn go'aanka ay labada xisbi gaareen inuu xisbiguna raaco bulshaduna ay dhankeyga ka qabsato waxaan ma garanaysaa halkan ku taageeraynaa go'aanka ay qaateen labada xisbi qaran haba saxaatay waxaan ka yaabay oo aniga iga wareerisay ma waxaad aragteen xusbi mucaarida oo ila doorasho dhici mayso waxa weeyaan waxaan oran jirnay ama la maqli jiray dawladdu doorashadii dib u dhigtay iyada kororsanaysan maqli jirnay laakiin maanta wax adduunka ku cusub oo ah sida darteed anu go'aanka shalay isla qaateen xisbiga kulmiye iyo xisbiga Ucid waxaan u arkayaa runaantii mid danaha dadka iyo dalka يعني وحطريا وشغدي اسكو عكرنان لهيد اسدول فدي لهيد عبد السلام ساها warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada BORAMA